بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان هاي أحمد حسين محمد تقل إن شاء الله وحان هل كان اسكولا وذاقي دونا هدو إلهي رهدو عشر كميد عشر هذا لغا قاتو إن شركة دا AG Nutrition إن شاء الله إن عشر كان وحوكا كوباني هاي أما وحا اللي رهدا 8 basic building blocks وسيديد قضب udub dhaxaad u ah ama aas u ah ama tiir u ah shaqadayna sideedan tiir ama sideedan qodob hadii mid kamid ah uu naga qaldan yahay shaqadu way naga qaldananaysaa laakiin sideedan qodob hadaan iska adkayno mar walba shaqadayna waxay noqonaysaa mid professional ah mid qurux badan ay noqonaysaa qodobka koobaad wuxuu yahay dream riyo ama himilo qofku markuu himilo ama rabitaan uu la yimaado waa mar walba guusha u dhawaanayo ama uu guuleysanayo sidoo kale riyadu waxay ku siinaysaa jihadi noloshaada markaad adiga meel ku cadahay oo aad rabto inaad wax qabsato oo aad wax doonayso markaad rabitaan leedahay rabitaankaas wuxuu ku hogaaminayaa ama ku dhaweynayaa shayga aad doonaysay sidoo kale riyadu waxay ku suuragelinaysaa in aad ajiif garayso ama aad gaarto waxa aad doonayso ay ku suurtagelinaysaa sidoo kale riyadu waxay xoog ku siinaysaa xilliga caqabadaha ay jiraan sidoo kale riyadu waxay ku suuragelinaysaa in aad noqoto qof markaad rabto inaad noqoto qof aad doonayso waxa kaliya aad qof ku noqon kartaa waxay tahay inaad rabitaan leedahay qofku haduusan rabitaan lahayn qof ma noqon karo waa inaad qof dhaqaale la noqoto qof aqoon la noqoto waxay kaaga xiran tahay in aad leedahay rabitaan marka hore shaygan aad qabanayso ee aad rabto guusha aad ka gaarayso inaad rabitaan u leedahay sidoo kale waxa loo baahan yahay maxay tahay markaad rabitaanka la timaado halka miyaad uga haraysaa maya riyadaada ama dreamka aad leedahay waa inaad qortaa waa inaad meel ku qortaa waa inaad qortaa haddana meelo kala duwan aad ku qortaa waliba now hadda xilliga aad doonayso shaygan in aad gaarto ama aad niyadaada oo ku soo dhacay isla saacada ayaa la rabaa in aad qorto oo dib u dhiganin sidoo kale riyada adiga aad leedahay ama waxa aad doonayso inaad gaarto waxa loo baahan yahay in aad la wadaagto dadka positive-ka ah sababtoo ah dadku isma lahan qof waxa jiro markaad la wadaagto oo aad dhahdo waxaan rabaa inuu shaqadan ama heerkaas inaan gaaro ku dhiiri gelinayo oo ku dhahayo hore u soco waad gaari kartaa geesi baa tahay hambalyan ku leeyahay oo ku dhiiri gelinayo iyo qofku niyad jibinayo ku dhahayo ma gaari kartid ma samay kartid qaraabadaadu ama familkaaga macnaha ma loogu talagelin ma lahan macnaha awoodaas oo kama dhalan dad noocaas ah macnaha dadku niyad jibinayo ayaa jiro وفهمتومان dadka positive ana waxa dadka macnaha mar walba ku dhiiri gelinayo ayaa la wadaagaa riyadaada oo la yiraahdo halkaas ayaan rabaa in aan gaaro sidoo kale in aad diyaariso boor ay riyadaada ku qoran tahay oo riyada gaariga guriga lacagta aad doonayso inaad samayso waliba adoo waqti u samaynayo oo dhahay xilliga in aan gaaro waxa inaan dhiso intaasoo team ah in aan dhiso intaasoo leaders ah hogaamiyaal ah in aan dhiso intaasoo maxaa la jiray qarash ah ama hanti ah guriga noocaas ah macnaha inaad diyaariso boorka riyadaada oo gurigii iyo gaarigii wixii aad rabto aad boor ku qorato sidoo kale riyadaada maalin walba inaad akhriso sidoo kale riyadaada inaad rumaysato waxa adiga aad ku doonayso niyadaada ka guuxayo waa inaad rumaysan tahay haddaad leedahay gurigaas iyo gaarigaas iyo waxaasaan rabaa haddana wixii wax aad rumaysanta ma ahan inaad gaari karta maba aaminsanidba marka waxa aad adiga qoranayso ama aad ku riyoonayso ama aad doonayso haddii aad isleedahay team dhisan oo professional oo qurux badan waqtigaas 2003 waa inaad dhistaa oo team ah haddana aadan aaminsanayn macnaha ma gaaraysid shay kasto aad doonayso oo aad ku riyoonayso qalbigaaga ka guuxay waa inaad aaminsan tahay shayga haddaad aaminsanayn waxba ha isku daalinin blog number 2 wuxuu yahay oo shaqadayna ay ku dhisantay maadaama 8 qodob aan soo sheegnay qodobka labaad waxa la yiraahdaa ka go'naasho qofka in uu la yimaado ka go'naasho sidoo kale qofka in uu noqdo qof ganacsiga daacad ka ah haddana professional ah qof businessman ama businesswoman
gabar ama wiil ganacsiga professionalku ah professionalku ma ahan labiska kaliya ma ahan inaad soo labisato tay soo qaadato dhaxda soo dhuqsato kaliya ma ahan professional waxa la yiraahdaa qofka shaqadiisa dhan walba yaqaano su'aal kasto uga timaada ka jawaabi karo si fiican u yaqaan macnaha dadka ka dhaadhicin karo dawooyinka sharaxi karo nadwar marketing wuxuu yahay fahansan su'aal hadii lagu weydiiyo ka jawaabi karo ka ayaa la yiraahdaa professional tusaale yar hadaan soo qaadano ninka xoolaha qalo ama xoolo qalka waxaad fiirisaa markuu wax qalayo neefka waxaad arkaysaa asoo 2 daqiiqo kala tuuray macnaha shaqadiisa uu professional ku yahay shaqadiisa ayuu professional ku yahay marka adigana shaqadaada inaad si fiican aad u taqaano oo aad macnaha shaqadaada aad fahansan tahay sidoo kale ka go'naashadu markaad shaqada aad rabto inaad qabato ka go'naasho aad la timaado ka go'naashadu waxay u baahan tahay ficil ka go'naashada waxay u baahan tahay ficilkuna wuxuu yahay inaad tababar qaadato inaad mar walba tababar qaadato sidoo kale inaad ka qayb gasho meeting walba oo dhacayo shirkadu waxay iska leedahay meeting dhaco mar walba inaad ku hurgasho oo meetingada dhacaya aad ka qayb gasho sidoo kale in aad akhriso dhammaan dukumeentiyada laga maarmaanka ah dukumeentiyada aan laga maarmin oo shirkadu iska leedahay waa inaad mar walba akhrisaa oo xog walba shirkadu iska leedahay aad akhrisaa si aad xog dheeri u hesho sidoo kale waxaad u baahan tahay waqtigaaga in aad u samayso qorshe waqtiga in aad qorsheysa ayaad u baahan tahay oo aad samaysataa waqtigaaga inaad qorshe u samaysataa tiraahdaa oo dhahdaa maanta waxaan casuumayaa 4 qof sidoo kale 4 qof ayaan on shalay casuumay ayaan dib u soo celinayaa on xog kale la wadaagayaa ama diiwaan gelinayaa sidoo kale isbuucan waxaas ayaan qabanayaa intaas qof ayaan tababar siinayaa macnaha waqtigaaga inuu ku kala xadidan yahay oo waqtigaagu markaasi balan qorshe aad u samayso waqtigaaga sababtoo ah waqti dhumay waa nolol luntay waqtigaaga markuu ka lumo waa noloshaadii oo luntay